Waxaa maanta magaalada Baydhabo tababar uga furmay garsoorayaasha kubadda cagta degmada Baydhabo. Tababarkaasi oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Cayaaraha Koonfur Galbeed, waxaana tababarka bixinaya garsoorayaal heer caalami ah oo muddo ka soo shaqeeyay kubadda cagta, kuwaasi oo ka yimid caasimadda Muqdisho. Ku dhowaad 30 garsoore oo isugu jira kuwo muddo ka soo shaqeeyay isboortiska Baydhabo iyo kuwo hadda raba inay ku soo biiraan xirfadda garsoorenimo ayaa ka faa'iideysanaya tababarkani. Tababarkan oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa waxaa daahfurkiisa ka soo qayb galay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Cayaaraha Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan guddiyada isboortiska degmada Baydhabo. Wasiir Maxamed Xaaji oo ah Wasiir Ku-xigeenka Dhalinyarada iyo Cayaaraha Koonfur Galbeed oo tababarka daahfurkiisa ka hadlay ayaa kula dardaarmay dadka ka faa'iideysanaya in muddada uu socdo ay ka faa'iideystaan aqoon kororsiga, tanina qayb weyn ay ka qaadanayso horumarinta kubadda cagta, gaar ahaan baahidii loo qabay garsoorayaasha kubadda cagta degmada Baydhabo. Referiyada ama calaamadayaasha loo tababarayo maanta ka faa'iideysanaya macallimiinta nooga timid dhinaca Muqdisho. Waa salaamantihiin. Sidoo kale waxaan salaamayaa martida nooga timid dhinaca Muqdisho, diyaarna u ah inay waxna baraan oo wax ka faa'iideysano oo dhinaca waliba garsoorka dhinacyadiisa kala duwan inay wax naga baraan ayagana waa soo dhaweynaya. waa la ii sheegay shalay inay soo gaareen isla shalay in la bilaabaan qorshuhu ahaa, laakiin ma suurtagelin barnaamijka inuu dib u sii socdana insha Allah waa rajaynaynaa. marka kulay wax weyn oo hadda aan ku darayo ma lahan kaliya, laakiin macallimiinta noo joogto inaan ka faa'iideysano waa baahi aan qabnay oo dad badan oo calaamadayaal ama garsoorayaal inay ka soo baxaan gobolkan ama degmadan gaar ahaan waa inoo muhiim. waa dareemi karnaa in maxaa la yiraahdaa baahi weyn loo qabay oo dhalinyaro badan oo barnaamijkaasna kaliya u baahan in la hago oo wax laga fahansiiyo, laakiin noqon karo ilaa iyo heer sakaafa ama heer maxaa la yiraahdaa oo qaarad ahaan wax ka noqon kara inaad tihiin oo aaminsanahay. macallimiin soo dhawaada insha Allah inaan idinka faa'iideysano diyaar u nahay. tababarkan officially uu furan yahay, kulay maalmuhu socon doona hadduu Ilaahay yiraahdo aan ka faa'iideysano. Sidoo kale xubno ka mid ah dadka ka faa'iideysanaya tababarkan ayaa sheegay in rajadoodu ay tahay in ay helaan tababaro caynkan ah si ay kor ugu qaadaan xirfadooda garsoorenimo, waxaana isugu jireen qaar muddo ka soo shaqeeyay iyo kuwo hadda ku cusub. magacay meelay Maxamed Cabdullaahi Abdiraxmaan, referee ku tirsan garsoorayaal ciyaartoyda kubadda cagta degmada Baydhabo. iyadaan ka faraxsana inuu nagaadana tababar oo physical iyo naylangaada buugaagna nasi inuu ka faa'iideysano buugaagta heerarka caalamka kubadda cagta oo garsoorayaal ka tala galayna nangiibi haddana hoob Ilaahay karaal nagada galabtina ilaa 9 saac ilaa yoonay maqribkii may jira doona inay isbartiibada tijaabada laga soo biidoona. kulay iyadaan ka faraxsana haddana macnaha hadda isku roogno iyada walan ka faa'iideysani tababaryaal garsoorayaal oo Muqdisho ku kooyan yaa hoolasayni wadan tababarkaas trainingkaas nin furi insha Allah waan ka faa'iideysadaan haddii Ilaahay karaal naga. bismillahir rahmanir rahim. magacay walaal Axmed Maxamed Cali oo ku mid ah dhalinyaradan Baydhabo. may baa maxdilada markiin koreeyay wasaaraddan oo manaqaban qaabadii tababarna maran oo macallimiinta waayo magaaladan waliba ku jirtay maray xirfadaro oo maray macallimiinta marka mayba maray go'aansaday in aan meena xirfadda intana ku kordhi tababarkan soo ka faa'iideysada oo aan inka maxdilay wasaaradda qaban qaabada meena barnaamijkan oo tababarkan albitarnimada iyadan inka faraasna maba inka fara in sifar asmi macallimiin korneenka qoyti oo maray FIFA ku mid ah in tababarna sida mayba ma injuudgeena galiyaan inta walaayeen baran idin ku faa'iideysada. bismillahir rahmanir rahim. ay meelare muqtaar dowsaak oo ku tirsan arbitriyaalka degmada Baydhabo. mayba eedeedan faraxsanaa geegan qeybgalno tababar oo lan furo garsoorayaasha degmada Baydhabo. mayba qeybgalayna dhalinyarada ras konton meelare eedeedan faraxsanaa tababar noocan ah markaas in qobadeedan falaqani mayba eedeedan kamaadaan Ilaahay ku soo qaarantaa saydi wasaaradda dhalinyarada ciyaaro imaam dawladda Koonfur Galbeed. mayba lana iyadan ka faraxsana markaas ma siin qodsadaan tababar noocan ah aan dadjiidan nin kan nagdan su'aal badan ka faa'iido. hada billahi tawfiiq. Wasaaradda Dhalinyarada iyo Cayaaraha Koonfur Galbeed ayaa dadaalo badan ku bixinaysa sidii lagu horumarin lahaa
qaybaha isboortiska iyo dhalinyarada, walow ay tahay markii ugu horeysay oo garsoorayaasha kubadda cagta Baydhabo ay helaan tababar noocan ah muddada ay jirto wasaaradda dhalinyarada Koonfur Galbeed.